dhalinyarada iyo haldoorka gobolka Sanaag ee ku nool magaalada caasimadda ee Hargeysa ayaa magaalada Hargeysa waxay ku qabteen munaasabad ay taageero ugu muujinayeen musharaxnimada Khadar Cali Xakiim oo ah musharax u taagan doorashooyinka golaha wakiilada kana sharaxan gobolka Sanaag isagoo ka tartamaya xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana halkaasi ka hadlay dhalinyaradii soo qaban qaabisay munaasabadaasi iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabada waxaan doonaynaa inuu mabda uu ka sareeyo qabyaaladda iyo qabiilka waxaan doonaynaa reer Sanaagow markay reer Maroodi jeexada barxad keenaan inaan waxaan doonaynaa golaha inaynu u keenno qof dhigiisa oo Khadar Cali Xakiina waxaynu nahay dhalinyartii gobolka waxaynu nahay dhalinyartii bari wadankan u hadhaysay u dadaalaysay ee uu Khadarna daadahaynay marka waxaan leenahay reer Sanaag warbal sanadkan isbedel sameeyno aan dhalinyaro la soo baxno aqoon-yahana waqti badan baan lahayn oday bayna hor taaganay maanta wanaga hayna dhalinyaradii dhalinyaro codkeena yanan kala leexan waxaan rajaynayaa in Khadar Cali Xakiim uu ka mid yahay dadka aynu isleenahay musharaxiinta aynu isleenahay arrimaha waxbay ka qaban karaan isbedel bay ka sameyn karaan بسم الله الكريم إلهينا وقولين دونا إنتان خضر كا قانو إسبدل كا وانين سورة جلين كرا ود دالية ودن ككور هيا qofka waa yaacni nibo ku tuumayso qofka aqoon ku tuumayso qofka aad karti ku tuumayso qofka amaano ku tuumayso waa inuu doorataa qofku waa inuu lahaada competence waa inuu lahaada qualification keedi waa inuu lahaada capacity keedi saddexda qofku hadaanu lahayn oo kartidii iyo aqoontii iyo qualification-ka aanu lahayn waxa weeye meel kuma gaaray waxa jeetaa waxa weeye waa shahaado been qurba joog waa badan dibadda waa dad badan oo joogtaan waxa fiican in gacan kaliya noqotaan doorasho soo socota maanta hiiliyo hool u baahan yahay Khadar dhaqaale han noqoto tala han noqoto waxyaabo badan u baahan tahay markuu horeysa qoladii lixdanadii kaambeynada ku jirtay iyo kaambeynadan maanta waa kala duwan yihiin maanta oo ay tahay 21kii ilaahay hadduu igu simay in Khadar Cali Xakiim uu maanta sharaxan yahay horta aad iyo aad baan u bogaadinayaa haddii nin dhalinyaro ah oo masterista oo imikana PhD wada oo professor barito noqonaya ya umada hadii wax ka bedel waayo cidina wax bedelaysa ma jirtay mar dambe cid dooran mayn waxa kale oo halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socday xisbiga mucaaradka ee wadani haddana dhalinyarada Sanaage halkan timaada badana waa dhalinyarada sida creamka soo dulmarta sida caanuhu u soo dulmaro labaantu si ay kala u nabad galaan ay xeedho noqoto waa leeyahay aynu hello dad aqoon leh dhalinyarana ah intooda badan codkiina mar hadaan uu gacanta ku haynin reerkiina uu ku kalsoon yahay inaan intaas la helo ayaan ku dadaalay hawl yar ma ahayn waxaan isleeyahay Khadar gobolka Sanaag ka sharaxan dadka ku farxay baan anigu kamid ahaa runtii matalaada markaynu ka hadlayno shacabka marka wakiil la leeyahay Khadar cidu ka wakiil yahay waxa weeyaan ma aha cayladiina oo kaliya waa gobolka Sanaag oo dhan ninkii oo kursi yar doonaya koskaraynaya $100,000 aqlina ma weelaliyan gabdhaba gacmaha isqabsada xildhibaankaasoo insha Allah 7 subaxnimo ay fursa oo xildhibaanka labaad ama koowaad ee Sanaagana insha Allah golaha ugu nabado gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay musharax Khadar Cali Xakiim anigu runtii wax isleeyahay kartida iyo aqoontii aan golaha idinku matali lahaa wallahi horta maxaan qaban doonaa golu muxuu qabtaa golu waa golu sharci dejineed muxuu ku sharcigu dawladda ku ilaaliyaa hadda dhibta jirta waxa weeye dawladii cid sharciga ku ilaalisa ma jirto qura waxay noqotay fulintu waxa la waxay doontay sameynaysaa sababtoo ah ma jiro sharci dejintii ku ilaalin lahayd ee ku control lahayd ku evaluation iyo monitoring way shaqada baarlamaanku waa ilaalin
iyo korjoogtayn qiimayn in sharciyada dalka lagu dhaqmo sharci baa ina dabray sharcigaasaynu u baahannahay inuu wax ka bedel ku samayno oo aynu nolol helo Axmed Maxamuud Dool MM TV Hargeysa